waxaa jirta su'aal jawaab u baahan oo ay isweydiinayaan ka guuxaysa maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay ee haldoorka ah amaba si guud ahaan u iraahdo maskaxda caafimaadka qabtay ummadda Soomaaliyeed. Su'aashaas meesha ay barnaamijkeena ka soo galayso marka hore aan wax yar ka taataaban. dowladda Soomaaliyeed waxa ay shaaca ka qaaday inuu dhawaan dalka ka bilaaban doono hawlgalka nabad ilaalinta Afrika ee Soomaaliya kaasoo ay ka qayb galayaan ama ay qayb ka yihiin ku dhawaad 12,000 oo askari waa 12,945 askari oo isugu jirta askarta tooska ah iyo dabcan booliis iyo shaqaale kale oo dabcan caawin doona ama ka qayb qaadan doona hawlgalkan magaciisa waxaa lagu sheegay AUSSOM amaba African Union Support and Establishment Mission in Somalia wuxuu bedelay hawlgalkii ku meel gaarka ahaa ee ADMIS kaasoo asna bedelay hawlgalkii wadamada Afrika ay ka fulin jireen waa hawlgalkii nabad ilaalinta ee wadamada Afrika ay ka fulin jireen Soomaaliya kaasoo soo bilowday 2006 ee magaciisa uu ahaa AMISOM waxa ka qayb qaadanaya ilaa iyo 5 wadan waa Masar, Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Uganda. hawlgalkan sidaan idiin sheegay waxa ka qayb qaadanaya 11,945 waa 12,000 ku dhawaad oo askari. waa 11,195 waa askar toos ah oo military ah halka 680 ay yihiin booliis inta soo hartana ay yihiin shaqaale kale oo ayaga caawinaya. waxaa la filayaa inay si tartiib ah amniga Soomaaliya farta uga saaraan ugu wareejiyaan dowladda federaalka ilaa 2028. qarashka hawlgalkan ku baxaya waxaa ka qayb qaadan doona midowga Afrika, midowga Yurub, Mareykanka iyo dabcan qaramada midoobay iyo wadamo kale oo Soomaaliya kaba. warbixin la helay waxay muujinaysaa in halka askari waa askariga caadiga ah ee dablaha ah hawlgalkan qaybta ka ah inuu mushaar ahaan u qaadan doono $1,500 in ka badan oo isugu jirta mushaarkiisa tooska ah iyo gurnooyin taasoo ka dhigan in bishii $2.5 milyan ay ku baxayso mushaaraadka kaliya cunnada shidaalka qalabaynta gaadiidka intaasna waxa ku baxaya inta in ka badan adiga isku soo duubay bishii waxa la sheegaa ama la qiyaasayaa in $7 milyan ay ku baxayso hawlgalkan okay ma xuma laakiin su'aasha aan isweydiinayno ama dhalinyarada Soomaaliyeed ay isweydiinayaan ama si guud aan iraahdo qof walba oo aragti nadiif leh su'aasha uu isweydiinayo waxa ay tahay sababta malaayiin dollar loogu bixinayo ciidamo ajaanib ah iyadoo la heli karo la qalabayn karo tababar heer sare ahna la sii karo hal mar 12,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah dhalinyaro maskaxdoodu dhisan tahay jaamacadaha dalka ka soo baxay kuwaasoo diyaar u ah difaaca dalkooda ma kula tahay in wiil Soomaaliyeed oo shaqo la'aan ah oo jaamacadaha dalka soo dhameeyay oo shahaado la hortaagan xafiisyada dawladda ama xafiisyo kale ee guli loo leeyahay intaba in haddii loo soo bandhigo inuu qaato 1,500 oo mushaar ah la qalabeeyo tayana la siiyo dalkiisana uu difaacdo inuu diidi lahaa ma diidi lahayn waliba waxa uu ka tayo fiicnaa lahaa ajaanibta dalkan imaanaysa dalkii uu yaqaanaa waa u dhashay dhibka ay argagixisada ku haysa ayuu og yahay sidoo kale cadawga kale ee xuduudaha dalka maalinba qayb goosanaya dhibka ay ku hayaan ayuu dareemi karaa haddaba waan sii adkaynaynaa maxay tahay sababta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga fursad loo siila yahay oo wadamo shisheeye ciidamo laga keenay dalkan qarashaad intaas leeg loogu bixi karo ayadoo la heli karo waliba dhalinyaradaas aan xusay sabab maxay tahay saaxiibada caalamiga ah ee qarashaadka intaas leeg ku dhawaad dhowrka 100 milyan sanadkii ku bixinaya Soomaaliya inay dhaqaalahaas dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka ka ah 79 waa 80% in ku dhow dhalinyaradaas oo raba dhaqaale inay helaan dalkoodan ay xasiliyaan nabadgelyadiisana ay ayagu ka qayb qaataan maxay tahay sababta looga dhowraayo ama looga ilaalinayo qarashaadka lagu bixinayo ajaanibta in ayaga lagu bixiyo waa hadday daacad ka tahay wadamada ama saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya dhanka amniga ka taageeraya ku dhawaad sidaan sheegay dhowr boqol oo milyan oo dollar ayay hawlgalkan ugu tala galeen inay ku bixiyaan sabab anigu waxaan oran lahaa haddii aan madaxda Soomaaliyeed qayb ka ahay war kuweena noo qalabeeya dhalinyaradeenna noo qalabeeya wiilal aan balwad lahayn wiilal aqoonta maskaxdooda ku jirta lagu soo hubeynayo muddo dhowr iyo 10 sano ah ayaan heli karnaa ayaga noo hubeeya ayaga noo qalabeeya ayaga noo dhisa dhaqaalaha aad ku bixinaysiin wadamadaas way mahadsan yihiin dhaqaalaha aad wadamadaas ku bixinaysiinna ayaga
wiilasheennan ku bixiya u fiirso haddii dhaqaalaha ay saaxiibada caalamiga ah ku bixinayaan ciidamada shisheeye beddelkii loo isticmaalo qalabaynta iyo dhisidda dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo la qalabeeyo oo ayaga looga faa'iideysto in dalkan amnigiisa ay sugaan waxay yeelan lahayd 4 faa'iido waana kula wadaagayaan faa'iidada koowaad waxa ay tahay inay Soomaaliya helayso ama ay heli karto ciidan qaran oo awood u leh difaaca dalkan iyadoo aan ku tiirsanayn ciidamo shisheeye faa'iidada labaad waxa ay tahay in dalka hal sano gudahood looga sifayn karo kooxaha argagixisada iyo dabcan cadow walba oo dalkan uu leeyahay ama gudaha joogan ama xuduudaha joogan faa'iidada saddexaad waxa ay tahay in dhaqaalaha malaayiinta ah ee hawlgalkan ku baxaya in lagu celiyo isla dalka taasoo horumarin lahayd nolosha dhalinyarada qoysaska Soomaaliyeed iyo xitaa kobaca dhaqaalaha GDP-ga ee dalka faa'iidada afraad waxa ay tahay in magacii libaaxyada geeska Afrika ama libaaxyadii Afrika uu dib u soo laaban lahaa isla markaana ciidanka qalabka sida waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu sanad gudahood ama 2 sano aan iraahdo ay badiye uu noqon lahaa quwad military oo ka magacaaban geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika afartaas faa'iido iyo faa'iidooyin kale oo tirabeela ayaa laga dhaxli lahaa haddii saaxiibada caalamiga ah malaayiinta dollar ee ay ku bixinayaan ciidamada ajaanibta ah ee hawlgalkan qaybta ka ah beddelkeeda inay ku qalabeeyaan ku dhisaan wacyigoodana dabcan kor ugu soo qaadaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee baahida u qabta inay dalkooda difaacdaan isla markaana ay helaan dhaqaale ay noloshooda ku maareeyaan sidoo kalena dalkooda u soo celiyaan familiyadoodana ay ku maaragtay bishaan u fiirso hal saac gudahood waxa la heli karaa 12,000 oo wiil oo Soomaaliyeed oo midka ugu yar uu digrii jaamacadeed wato isla markaana diyaar u ah inay dalkooda difaacdaan ayadoo haddaba la heli karo dhalinyaradaas la heli karo wax baratay maxaa sababi kara in ajaanib loo baahdo dhaqaalahan ay ku bixinayaan saaxiibada caalamiga ah wadamo shisheeye si ay dalka gudihiisa fiiri waa ninaan dalka kale aqoon weligiis arkin laga yaabo qaarada East Africa meesha uga taal inuusan aqoon wiilka Masar ka yimid ama ka yimid waxa la yiraahdo Uganda maxay wiilashan dhalinyarada Soomaaliyeed ee sanad walba jaamacadaha ka soo baxaya ee u hamuun qaba dalkooda inay difaacdaan ayuu wiilashaas la heli karo maxay tahay sababta ajaanib loogu baahanayo waa su'aashan isweydiinayno oo kuma santahay ilaa halkan hadii aan la soo gaartay fadlan su'aashan hadii maskaxdaada ay ka guuxayso xagga hooste nagula wadaag sidoo kale jawaabteeda hadii aad haysin ku dar barnaamijkan noo sii share garayso asxaab badan u gaaro waxaana Harun Maxamuud nabadgelyo